السلام عليكم. سو يعمل سو عرر سو بوحسمة سو بوحسمة سو بوحسمة افراح وانك سلامي عبد الجامع فارح سلام شرف قدوم لما انتم بالسلامية جمعة وناكسن سوب وحسمة صوبتها معها مساكين وين تذكر معها لا يفكر سوق ردك عليها سوب وحسمة إلى هاي بركة إلى هاي معها ترنتي لها بركة إلى هاي تذكر والله السبت لكن صيع it's not possible إلى هاي بركة سوب وحسمة سوب وحسمو إي صوبتا سوب وحسمو إي صوبتا باراكيستي والله هو لحدا وي ما شاء الله تربو صوبتا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يد السلام يا برنامج المسيح وضمنا إن شاء الله ونوب لا برنامج ما أنت حكوا سابسين هاي وحكوا ساب إحدى ومدي الصومالي ده وحلقوا سلة وإيحانيان قف كستا وإيحانيا haddii reer loo garnaqayo waa la kala yaxanayaa oo qaar baa la raacayaa haddii dad isqabtaan waa la yaxanayaa haddii baacmishtarku ay isqabtaan oo ilaah noo garnaqa waa la yaxanayaa haddii siyaasiyiintu ay isqabtaan waa la kala yaxanayaa haddii muxuu ahaa wax dhacaan waa la yaxanayaa yaxashaduna waa wax weyn weeyaan wax xun weeyaan waa wax xun ummaddan aqoon cadaaladda ay kala yaxataan waa ummad xun weeyaan waa qoom jaahiliina waa qoom xun weeyaan markaa waxaa la yidhi mid ba u daran laba u daran saddex ba u daran afar ba u daran shan ba u daran lix ba u daran mid ba u daranoo qof walla beenaa ku dhaartay ba u daran laba u daranoo laba isqabta oo gurigii iska xaday baa u daran miyaad ninkaaga ka ilaalin kartaa jeebkaaga miyaad xaaskaaga ka ilaalin kartaa jeebkaaga may laba u daran oo laba isqabta oo kala shakiray oo gurigii kala xaday ayaa u daran saddex baa u daran laba hablood oo walaalaa hooyadood oo soo guriga noqotoobee lasoo wada furay oo isku si u labistay oo carmala isku si laba hablood iyo hooyadood oo duruucdii isku qabsaday dareecan ale gambada aniga ale naanisi gambada ayada may walaa kanaan ahaay muxuu ahaa yaa kaba kuwaygii waa laba hablood iyo hooyadood oo soo guriga noqotoobay ayaa u daran saddexaasa u daran muxuu ahaay afar ba u daranoo afar nin oo ergo ah oo milasama laqataa afar nin oo ergo ah oo isku reera oo gar eexa isku raacday baa u daran afar nin oo ergo ah oo ergo loo dirsaday oo dadka ay dhexdhexaadiyaan oo afartu ay gar eexa isku raaceen baa u daran shan ba u daran shan nin oo walaalaa ama shan qof oo walaalaa oo midna aanu shanta din islaamka xabad ka aqoon baa u daran markaa eexda maalin la weyto waxaan arkay dad eexanaya gabay baan ka sameeyey sugaan yar oo laba erayaan ka sameeyey waan badnayn qalbi aan dhan mooye dhexdhexaad ba noqon karin
qalbi aan dhan mooye dhexdhexaadba noqon karin dhegihiisa ruux kale ku dhurto odhahaha sida weel la dhaansado qalbi aan dhex mooye dhexdhexaadba noqon karin dhegihiisa ruux kale ku dhurto odhahaha sida weel la dhaansado yaanu aniga ii dhihin yaanu aniga igu dhihin yaanu aniga ila dhalan yaanu aniga ii dhiqin qalbi aan dhex mooye qalbi aan dhan mooye dhexdhexaadba noqon karin qalbi aan dhan mooye dhexdhexaadba noqon karin dhegihiisa ruux kale ku dhurto odhahaha sida weel la dhaansado yaanu aniga ii dhihin yaanu aniga igu dhihin yaanu aniga ii dhiqin yaanu aniga ila dhalan maxaad ka hadlaysaa ninkan leeyahay af Soomaali wax baan ka hadlay walaal wax imikana qodobka labaad ka hadlay waxa weeyaan nacasyada bariga hore nacas baa jiray komanka soo qora qofkii nacasow anu nacaska idan kow ka ahay imika idan ka xanad sheeganaya walaal waxaan ka hadlayaa nacasyada in la helo dadkii uu wareeray nacaskii fariidkii baa la kala garan waayey anigu kow baan ka ahay yay soo raac ay soo garanayaan yaa nacasa dabeel bay waranaysay qofka nacasow ii soo sheeg alaa ku soo qor haa ummaddii Soomaalida nacasnima haysa beriga hore waxaa jiri jiray nacas iyo doqon markaa nacas iyo doqon waa idin kala fasilaya doqonku waxaa leeyahay nacasku marmar baa nacasnima ku qaata walaa arrintaa waan ku nacasoobi arrintaa nacasnima igu qaatay laakiin doqonku waa berman waa weligiiba oo nacasnimadu maaha joogto maaha laakiin doqonnimadu waa joogto waa berman qof baa aniga nacasa wallaahi ya aniga nacasa ma cidda caay may waxaan sheegaynaa walaal inaan baraarujinno dadku way kala socnaan jireen baan ku leeyahay dadku xeerbeegta bay kala lahaayeen iyobay kala lahaayeen muxuu ahaa odayaal iyo guurtii iyo dhallinyaro iyo dadan golaha iman imika waxaan ummadda Soomaalida haysta guud ahaan ee meel walba naga haysta wixii baa isku dhex daatay halkan waxaan idinku soo gudbinayaa gabay ku saabsan qoyska quruumaha midoobay iyo dadka qaaradaha buuxshay qoys iyo waxa laga ulkamay laba qof weeyaan waxa qaar qaangaar ka dhigay qaybna dib u reebay waa in qeexday nolosha iyo inaan qalad ka weynaanin waana qaali awlaadu iyo qiimo saayidahe marra ubax qurxoon oo ishu qabato weeyaan marra qurub lagaa jabay waa qayb lagaa jaray marra waa quruum beermaysa iyo qooman kaa hadhiye qalad iyo wareer laguma dhaqo qoysaad leedahay qorshe iyo waxa loo dhigay qodob ay raacaan qacda waaga ilmo waalidkii qaylo hurinaayo oo hadal qaraar iyo afmal isu quudhaayo ilmo qaabada loo korshay oo qaxar ku weynaaday isaguna qalqal oo laga qatoobaa ilmo aan qabl lagu korinin waan qiimo lagu sheegin oo ay qaraar lagu baxdilay quuqlo iyo liite naanays qariban loo baxshay oo lagu qasoobayo ilmo qaabada loo korshay oo quursi laga buuxshay isna qoys naftiisu ka dhigay qiimaan mudanin ilmo qalinka iyo buugga aan loo qorshaynaynin oo qaladka meesha ka dhigo qayb la fahansiinin quraacdii iskuul aadaya oo qadada soo doonta oo macallinkiisii qawada qayrka wada dhaafo isna tacab qasaar buu noqdaa qoys mid laga joogo ilmo qadaf hadduu geysto aan waan loo qoraynin qunyara aan wax loo sheegin oo qawda laga saaro ilmo qaabada lagu korshay oo cilqanshaha buuxshay isna qaatil buu noqonayaa qof oon qof bixinaynin ummad yahay qoroo hubi waxay qaraysaa laabtaydu bulsho qaniya wuu dhali karaa qoys hagaagsaneeye mid qaribanna wuu beeraya kii qalloocani ummad yahay qoroo hubi waxay qaraysaa laabtaydu bulsho qaniya wuu dhali karaa qoys hagaagsan mid qaribanna wuu beerayaa kii qalloocani gabaygaas waxaa la qaangaadh haddii ilmaha la dilo hadhow waxbuu dilaabuu noqon doonaa wax dila haddii ilmaha la caayo qof hadhow cay badan buu noqon doonaa wax caaya
haddii ilmaha aan lagala shaqayn homework iyo iskuulka marka soo yar ruux aan laga caawin xiisada aanu aqoonta u lahayn haddana laga caawin hadhow damiin buu noqonayaa aan iskuul ku fiicnayn muxuu ahaa haddaan ilmaha la odhan fariid baate oo qab loo yeelin oo aan hal loo yeelin wuxuu noqonayaa olayaho nacas baate jaanjaan baate wuu qiimo beelaya wax is odhanayaa waalidkaa waa kii ku caayi jiray naf malihid marka ujeeddadeedu waxa weeyaan in carruurta marka ay guriga joogaan in lala shaqeeyo xagga maanka lagala shaqeeyo xagga mooraalka lagala shaqeeyo xagga gacanta lagala shaqeeyo oo aynu dadkeenna iyo ubadkeena dhisno waayo sababtaa mataqaanaa dadkan lagu soo daynaya suuqa wanaagoodu gurigu ka yimaada haddii qoys qul inoo hagaago qoysas badan buu hagaajinaya oo isku dayanaya waayo gabadhii wanaagsanayd gabadhii kalaa jaarka ahayd bay hagaajinaysaa aabbihii wanaagsanaa wuxuu hagaajinayaa aabbihii jaarka la ahaa ilmihii yaraa inankii kaloo ciyaaraya oo hagaajinaya muxuu ahaa waa la isku dadaynaya bini'aadamku isku daydaan marka haddaynu hello qoys fiican qoysas badanoo fiican baynu helaynaa haddaan hooyo wacan hello hooyooyin badanoo wacan baynu helaynaa marka waxaan jeclaan lahaana in arrimaha xasaasiga qoyska iyo muxuu ahaa dhaqanka bulshada in lagu soo badiyo social mediaha oo siyaasadda la iska daayo in laga wada hadlo wax xaqiiqda ah runta guryaheena yaalla oo la istoosiyo qurbaynu joognaa waddankii baynu joognaa meel kastaynu joogno inay isku xidhmaan afkaarteennu inay isku xidhanto afkaarteennu iyo maskaxdeennu waayo iminka yurubiyankan way isku wada afkaar way isku wada ra'yi ingiriiska iminkan uu joogaa way isku ra'yi warshad bay ka soo wada baxeen sibay u wada socdaan sibay wax u wada cunaan sibay u wada sheekaystaan sibay u wada fakeraan sibay waxbay wada daawadaan dhar bay wada xidhaan waa isku nooc warshad bay ka soo wada baxeen laakiin naga waxa wada luntay naga warshaddii dhaqanka soomaaliga ee fiicneed bay naga luntay khalkhal bayna galay yaa qof kasta wuxuu la soo baxay isagu dhaqanuu keligii leeyahay dhaqanuu keligiis ka leeyahay ayaa qof kasta soo baxay markaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa aad iyo aad baan wax ii soo qora bal waan salaamayaa dhammaantiin walaalayaal aad iyo aad waan salaam walaal aad baan idin salaamay wax ii soo qora bal wax ii soo qora aan gogosanay ma weli intaan baran doono sidaa laysu soo qabto hees yararo noo qaad gabayay maraysaa xaggee hees looma soo noqon karaye ya maxaa juba aaka shalololala taa adigu taa noo qaad juba aaka shalla wuxuu ku leeyahay hees yararo noo qaad ya me waxaad noo qaaday jam istaad jam istaad waa inaan jalaqsan indhahaa jibiqsan timahaa jiribsan xubnahaa jilicsan hey awrta jooja jam style ya waan salaamayaa isan u wadaagno hadal waxyaabaha xasaasiga ee la isleeyay dadka waxbay ka faa'iidaan halkan igu soo qora halkan kale waxaan ka salaamayaa walaashay muxuu ahaa farxiya fiiska oo halkan aan iska raaci lahayn is-abaabulay laakiin anagu arrimo ii gaara awgood aan uga hadhay sida hargeysa lagu soo dhoweeyey waxaan leeyahay hambaliyo walaal hambaliyo waddankaagii baa tagtay si fiican baa lagu soo dhoweeyey aad baan halkan kuga salaamayaa waan bogaadinayaane salaan iyo bogaadin baan u dirayaa farxiya axmed cadaawe farxiya fiiska salaamaya
ujeeddada waxay ahayd inaan u soo galo aniga wax badan maan hayn waxaan doonaya inaan soo galo intan arrimaha qoyska inaan u soo galo iyo suugaanta ku saabsan qoyska waxaan intaa ku darayaa haddeerto hablaheenna qurbaha jooga waxaa laydin barayaa sida ubadka loo koriyo bal nasiib darradayna haystaa innaguna waxaanu nahay dadkii koowaad ee hooyada soomaaliyeed iyadoo miyi joogta ayaa waxay ahayd brofeshinka ugu sarreeya ee ilmaha waxaan markhaati nooga ah marka ilmaha gabadh dhalato hooyadu waxay u qaadi jirtay hees hobeheya ey hobey hobeheya hobeheya godohoy gaagaabi hadalka na godoy gaagaabi hadalka nagayaanba guriga yimi oo rag baa gooyaha fadhiya waa inan 6 bilood jirta bay la hadlaysaa gaagaabi hadalka na godohoy gaagaabi hadalka nagayaanba guriga yimi aday geelka wadahaane ayaan geelaagu noqone marna waxay odhan jirtay hooyadu waxay odhan jirtay markay inantu oydo waxaan jirtay muxuu ahaa naaskayga cabbaan ku idhi waadigii caanihiisa diiday calooshana waan ku taabtay oo waxaad cer lahayd ku siiyey dharkaagana waan caddeeyey oo anaa casar dheero maydhay xumadi kaamay cabaadin ee inaan cudurku hayn hubsaday haddaan wax ku ciilay jirin cabaad inan looga fiicane inaad cabataan wacnayn naa dharkaagana waan caddeeyo anaa caasar dheero may hiidhay calooshaana waan ku taahaabto waxaad ceer lahayd ku siihiyey oo xumadi kaamay cabahaadin haddaan wax ku ciilay jirin cabaad inan looga fiicane inaad cabataan wacnayn markaa maxay sheegtay ilmuhu muxuu ka caban karaa inuu xanuunsanayo in gaaja hayso in dharkiisu uskag yahay xilligaas ayay hooyada Soomaali taqaanay maantana waxa lagu onayaa training baa lagu sinayna qaabka carruurta naaska loo siiyo qaabka loo cilmigeena baa laga soo xaday markaas maanta magan u nahay cilmigeena magan u nahay waxaan kale halkan idinku sheegaya kale marin hore la soo wadiiyey marba waxaan tegey waxaan ka qayb galay tartan gabayada adduunka anuu keligay baan ahaa dabeetana marba waddan baa loo yeedhay haddaba gabayada wallahi been baad moodaysaa central la dhanbay ahayd aniga dadkii Soomaalida xabad waan ka waayay dabeetana hindi baa loo yeelay khaan joog wax noocaas khaan dabeetana aduu bal gabay hindiya ka war gabay hindiya hees baan maqli jiray jalka dilka he dilyaha oo dilka he bal aduu ka waran bal gabay hindiya ka waran ana waan daawanayaa qof kastoo gabyaya wax la socda midda 200 oo qof oo isaga waddankiisa oo durbaano u sida gabaygu dabada qabta taare kaale faari maare kaale waari chaare haare haare taare kaale naari duri kaale faari baari kaari taare baari durbaanada loo qoday durbaanka chaare kaale maane haale faari durbaan loo tumay haddana waxa loo yeelay muxuu ahaa sangalina Sri Lanka loo yeelay waa kala baxay anda baralana anda wadalala
Titang Manchandala, and Fadella, and then Bangudelek, and then Witty, Fifty, Hinty, Nitty, Chutti, Petit, what should the Chudilea? Yeah. Waa lagu soo yaacay waxa loo tumay isagana durbaanka taageerayaal buu leeyahay haddana waxa loo yeeray muxuu John Germany Jarmalkii baa ula kala baxay waa gabay Jarmala dus khaash dus hash wuxuu leeyahay isagana 200 qof baa shacabka u tumay haddana waxa loo yeeray haddana muxuu ahaa Italia allora stessa casa porta alimo patanana pasta fina lalado banano comiatano una hawatako una nanina أنا بنانا الهلالة يا وحي الهلالة إذا صعب كان لطمة هذا نوع أفريقيا أو نيجيريا يا نيجيريا الله يا نيجيريا أو أبريبلا تربانك الله ودو يا سوارتي ما عربك والله يا عربك قليشة يا عيال ملاشة يا عيال طلاشة ومن قليشة يا مش كويدي وحامويا الكويد وهنوني يا قفيرة قفارة يا قربانة الكبيرة يا عيالة طلاشة يا ليدلاشة طلاشة يا ملولة ملاشة يا وحاسك عصنا شوي أنا والله يا فارع أول جامع سومالو قبيا وايستيقف صعب مله تدخل ميلو شوقبا هادو درست عاديستي إنه ديك داتشدو هادي اللي يسكدين واي دور شوقتي حوله قيلة صدره يا ودمي على هذا وان ودي صارت ما تيم باقي بيو يري markay dan runta u sheegtay duqbaanahay dulciga noolaha lagu dacweynaa waxay daareemaan arrintan dunida noolaa baraadayna suruushro diirta laysiri rabbi bay ga daafay markaa duubkan ay xidhay maraykaanka soo duulay way nagu dambaabeene maraykaanka soo duulay way arag darreeyeene dayax gacmeed iyagoo istaa